cabdalle buurane waxaanu siinay shakhsiga u romanticsan Soomaaliya sidoo kale dad badan oo aaminsanaa habargidin romantic ma taqaano qababac iyo dagaal iyo rasaas iyo ma taqaanaa ii sheeg waxyaabihii lagu xalan jiray reerka ee ahaa hoo bariiska kaliya boo wuxuu dadkii Soomaaliyeed tusay reerkaanu jacaylkana inuu yaqaano farxadaha kaaga horeeyo sidoo kalena reerku gabdhaha u fiican yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaa si toosan oga daawanaysaan xaqiiqside waa anigoo Dr. Royal ah kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub maanta waxaan idiin sidaa shakhsiga ugu romanticsan Soomaali markii la yiraahdo 2022 yaa qaatay qoyskii ugu romanticsanaa cabdalle buurane ayaa soo bandhigay jacaylkiisa asaga oo farxad la wadaagaya saad muuqaalka hadda kaga jeedaanba mar saas buu u qaadayaa oo ma taqaanaa wadada dhexdeeda ilaa guriga waxaana loo xaqiijiyay baska markay ka degaan baska saybiyahano ilaa haanta dheer asoo saa sidoo ku qaadaa oo geeyaa cabdalle buurane ayaa sidoo kale jacaylkiisa subax marka ay soo kacdo cuntada asaa ka hor kariya sariirtoona ugu geeyaa ilaah baa ku dhaarshay ma shakhsiga ugu romanticsan aan dhihi karin Soomaaliyeed cabdalle buurane waxaanu siinay shakhsiga ugu romanticsan Soomaaliya sidoo kale dad badan oo aaminsanaa habargidin romantic ma taqaano qababac iyo dagaal iyo rasaas iyo ma taqaanaa ii sheeg waxyaabihii lagu xalan jiray reerka ee ahaa hoo bariiska kaliya boo wuxuu dadkii Soomaaliyeed tusay reerkaanu jacaylkana inuu yaqaano farxadaha kaaga horeeyo sidoo kalena reerku gabdhaha u fiican yihiin reerku gabdhaha dhaqankooda si fiican u yaqaanaan sidoo kale gabadhan ayaa ayadana sida aad u jeedaan jimka dhididka uga tirtiraysaa jimka dhexdiisa biyay ku dhex siinaysaa gabadhaas ayaduna taloom habargidina yey Soomaali ka taa nagu ma xaqiijin karnee gabadhaas ayadana waxaa ka muuqata romanticnimo iyo jacaylkii lagu yaqaan gabdhaha Soomaaliyeed laakiin gabadhaas waxa weeye waxaanu dhigi karnaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan kulli horta waa wada jacayl iyo romantic iyo wada naxariis ay dunida dhan kaga tageen laakiin waxaan isleeyahay kolley qolada ay sii tahay farxado gooni u soo jiiday reerka in loo dumi doonaan ka baqayaa cabdalle buurane waa laga yaabaya annagii oo dhanaa ka yaaban jacaylkan hindiya xataa lagama yaqaan alaabtan hindidii oo ka tegay wuxuu ka tegay Eeshiyaankii Yurubiyankii oo ka tegay inna ilaahi waa aragtaan cabdalle waa aragtaan wuxuu ku jiraa maalmihiisii jacaylka ugu farxadaha badnaay oo ku jiraa dad badan marka commentiyada ku dhaliilay kuwa waxay leeyihiin hadiiba ninkan oo naag helay annaguna waa helaynaa war ninkan soo nin raga ma naag maxaa u diidan oo helo maxaa sama taqaanaa oo dadka ka duwanaa wax kala duwanaa oo xaquuqdiisii weeye marka Soomaalida inta badan qafka commentileyda qafka aad bay u garaacaan qafka wala niijibinaya waxa leeyahay qafkan hadduu qaf helay qaf kasta helaya qafkan ma caatoobayo qafkan ma hikaadayo qafkan ma boodayo war ninkan raga weeye waa nin dhanira ah waa nin Soomaaliyeed nin qalbi fiican weeye waliba ninkaasu marka waxaan leeyahay meeshaan hambali uga dirayaa cabdalle buurane iyo lamaanihiisa hore u socda kolley dad badan baa rule model u tihiin cabdalle buurane iyo jacaylkiisa waxaa rule model u noqoteen ii sheeg maxaa la yiraahdaa qoysaska Soomaaliyeed oo dhan ayaa rule model noqoteen laakiin dhibka ugu weyn oo jira waxay tahay dad badan oo waxaa jira oo caata ah sideedoo kale ah oo aan laamiga ilaa ma taqaanaa ii sheeg haanta dheer aan wax sidi karin annagu fadhiga ilaa qolka fadhiga waa xariiftami karnaa waa jijidi laakiin haanta dheer ilaa laamiga ma soo sii karno horta cabdalle raggaasna waxa weeye waa ku dirta gabdhihi hadda kulli waxay leeyihiin hana la xambaaro kulli waxay leeyihiin chiefka waxaan alku keeno wada cusubna waa jeexday oo cabsideeda leh laakiin
fariinta aad ku dibdhigaysaan waa fariin aad qurux badan weeye waa fariin jacayl ka muuqdo waxaan rajeynayaa in lagu daysan doono qoyskaas Soomaaliyeed oo dhismay qoys farxadeed weeye allaha barakeeyaan leenahay hana lagu daysado gabdhahana waxaan leeyahay ilmaha argacali hadii hal faarax hadii oo soo baxo naxariista aad u badan tahay canjeelo sariir la isku keeno aad ha u rajeenina hal qaf oo ma taqaanaa xoogaa yar naxariis ku jirta hadii aad aragtaan kulligiin ha isku daynina inaad ku riyootaan sariir canjeelo inaad ku cuntaan jikada inoo balana aad baa idin salaamaya inta muuqaalka ay kulmi doono waxaan kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo